السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إيه ورمسيتهين ما في عنتهين وحارجينا هنا في عنتهين دمانتين أنا جنا وفي عنا هاي سيدو كلا الحمد لله. ما بدن أعمقنا كدب ما أنت صولة بتي عدكي جسك دريم السان هرقب ميا قبو ميا كلا ذي شك دون تاي كلا قعان marka hala soo dhawaado waxaa rajeynayaa ilaa dhamaadkii inay ila joogdeen sidoo kale comment iyo like iyo subscribe aan gali iloobin waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii dhiirigelisaan mar walbo ilaahay ha idin sharfo marka maanta halkaan ka bilaabanayaa routiinkeena sida caadiga ahayd ama caadada ahayd subax walbo guriyaha Soomaalida canjeera laga cunaa sax marka halkaan waxaan soo dubanaynaa canjeeradeeni burka isla saakan ee qasay ani habeenka burka ma qasti waxaan qastaa subaxnimada sidoo kale halkaas waxa iigu jiro shurbad aan ilmaha ugu talagalay waxa way shurbadan la isku dardaro waaye oo la soo shiido aad ay u fiican tahay ilmahana way kula korinaysaa sidoo kale meeshaan waxaan dubanaynaa canjeerada xitaa subax markaan qasaayo burka kaligiis ma ka dhigo waxa kale oo ku daraa shurbadaas oo maxaan dhahaa bakeeri haafkiisa camal ah waxa kale oo ku daraa ukun si looga dhigo canjeero healthy ah burka kaligiis ilmaha waxa ma gelinayo caafimaadna ma ahan marka alxamdulillah sidaan ku soo wadeena waxyaalaha kale oo xigo waa isla arkeena biidnillah marka hal soo dhawaado waxaan rajeynayaa ilaa dhamaadkii inay ila joogdeen insha Allah hadda canjeeradeena waa soo gabagabo mid u dambaysa saaran kadib meeshaan waxaan rabaa inaan ilmaha quraac ugu soo kariyo saaka quraacdeena waa kala duwan tahay xaafada 3 qayb loo kala bixi waa arki doontiin cid waxay tiraan noocaas rabaa fahanteen marka videogan hadda idin soo gelinayna isla maanta duuba maalmahan oo dhan waxba ma duubin waxaa maalmaha waxba ma duubin maanta waxa dubtid oo dhan waa in asxaabta u gelisid marka halkaana basal iyo saliid yar aan dabka soo saartay yaanyaan dabka soo saaray quraacdan waxa iskale ilmaha sida ila arki doontaan kadib yaanyada markaan dabka soo saaro waa soo yar daboolaya cusbo yarna waa ku soo darayaa ma aqaan wax jir inay tahay misana iska dhaadhiciye yaanyada markaa dabka saaro hadaan cusbo ku darin ani waxa arki dhaqsim ii jajabayso laakiin marka inta cusbo ku daro wax yar ka maqnaado dhaqso way kala daadanay marka aan quraafada aaminsan oo iska dhaadhiciye mise wax jira waay marka waa kana hadda yaanyadii way soo kartay waa soo burburinayaa baashan aad ay caawisaa wax walba sana ugu burburiyaa yaanyada waxaa rabaa inay riiqmato oo xabad laga arkin oo hadhow marka waxyaalaha kale ku darto ee dadka afka ka galgalin marka waa kana haddadaan waa soo riiqeynaa ilaa ay baaba'do oo si fiican isku soo dhaxgasho kadib meeshaan waxaan ku soo darsanaynaa daaniye yar kuma badinaayo daaniyadan marka la idin soo duubi doona inkastoo maleynaayo beejkii inay ku jirto sida u sameysto marka waa kana hadda daaniyadan sanjabiil iyo daaniyo iyo nacnaac iyo toon waaye iyo daaniyada kadib wax yar oo babrika ku soo daraya yar kuma badinaayo maadaama ay quraac ilma tahay kana hadda si fiican isku soo dhaxgashay kadib maxaan sameynaynaa waxa karsanayna waxa waaye shakshuka laakiin shakshukadan waxa rabaa aniga inaan cheese ku daro maadaama ilma siinayo waa kana hadda waa soo yar daboolina marka 4 xabo ukunta ku soo daray saasay soo noqotay ani ma raba iyadoo maxaa la dhahayo kala daadanayso yaani gudaha ceerinka inaan ka bixiyo waxa rabaa inay gudaha ka karto kadib inaan duuba u maleynaa qaybta ma duubin cheese aan ku soo daray ukun walba xoogaha cheese aan dul saaray hadda waa kana sidaan ku soo baxday ayada dhan oo isku soo dhalaashay ما شاء الله لقى مشاكين كران كده أفارهن هلا سو تجابي المهن هلا سيو كدي بهذا مكيسان ديار وتهاي وحنسو سمي سنايا إن بصل بارن سو شرشرنايا كركا وقصو درايا سي أي قروح النقط الماء حتى هدي عندك عن عنين وحال سميها عند ولا قرقرحيا ولا ناشناشا وعنايا المركز سرت سلو وقادو حالا ناشناشا عند kadib waa kana hadda quraacdeena saan diyaar waaye sidaan quruxda badan ay ku soo baxday Allahumma baarik laba subax oo la soo dhaafay shala subax iyo saakaba quraacdana cunne ilaahay noo barakeeyo inta haysan ilaahay ha siiyo waa kana hadda marka quraacdeena sidaan quruxda badan ay ku soo baxday indhaheebu u roontahay ilmi markay saan tahay hadday cunto diidiin xataa waxay isdhahayaan bal waxaan laga war doono waxaan maxay yihiin hooy keen waa dhidhiminayna luule adigana waad u amaanaysaa
waxaana arag oo la maqal waaya leeda alla wuxuu macaanaa. markaas way isku dayayeen xataa yay wada cunin hadday rabaane xoogaha way ka cunayaan. marka ilmaha in la siro ma ogi waxay cunayaan malaha, ilaahay khayr ha siiyo. marka waa kana hadda gudaheeda intusaaya gudaha siday uga soo kartay sida marka biyaha lagu kariyo ukunta maaragtay soo gudaha kama noqoto cadaan iyo xoogaha yar isku jiro saas camal ay yara noqonee lagama sheekeyn karo. kadib waa kana anoo rab inaa idin tuso inkastoo aan diet ku jiro oonan rabin waxaan faat kale inaa cuno, laakiin waa ku qasbanayda inaan intuso inaan dhadhaminin baaba umaleenba oon kaamirada bas in ku tusaaye. marka waa kana faarahan maasha allah waa lagama sheekeyn karo. kadib markii hadda saan diyaar u tahay quraacdani labaad waatana. dalabkii labaad wuxuu ahaa chicken oo lagu kariyay hani. chickenka markii malabka lagu kariyo waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo, allahumma baarik, aad u macaan yahay. maadaama aan jikada hal mar wax wada karinayo wax kasta ma duubi karin, marka midaan ma soo duubin, laakiin marka la soo gelin doona insha allah. sidaan quruxda badan oo kusoo bixi chickenka markii macaan dhanaan laga dhigo lagama sheekeyn karaan ku dhahay. hala soo tijaabiyo asagana hadaa hore u taqaaneenna waa alxamdulillah. marka waa kana chickenkeena hadda sidaan waaye. waxaan rabaa inaan hadda qaadada kusoo jaro. marka hore ovenka soo geliyay wuu kala daadanaya. markaan ovenka soo geliyay kadib wax badan ma marinin oo ovenka geliyo oven kasoo baxo si fiican usoo karay haddana malabki iyo waxyaalo kaloo badanaa ku daray waa isku huuriyay dabka intaa u gaabiyey. marka ku dhahay sas hadaa u taabatid uu kala daadanaya lagama sheekeyn karo maasha allah. marka waa kana hadda quraacdeena saddexaad aniga quraacdeeda waaye. meeshaan waxaa waaye yogurt plain iyo maxaa la dhahaayo loosaskaas iyo zabiibkaas iyo pumpkin seedskaas waaye. quraacdeeda aniga intaanay ahayd. beriyahan wax kasta cunaa waa iska dahay. marka hal la ogaado. kadib waa kana qadadeen inkastoona soo duubin ilmaha qadadooda maanta waxay ahayd bocor, bataati, moos ceyriin muxog ay soo dhahdeen moogtiin muxog, kaaroot, adduunkaasoo dhan waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo maasha allah. kadib meeshaan waxaan rabaa inaan soo shiito shaahi waxyaalaha lagu carfinayo marka la karinayo. maanta oo dhan xig ma soo tumi karsid moogtii ana hal maraa intaan xoogaa fiican shiido baan weel ku shubtaa. kadib hadhow marka intaas dhamaadana haddana in kala shiidaa. hayl iyo hadda waxaa waaye bahalkaas af soomaali kuma aqaan haddii dhibka jiro. maya dhagayaro waay kan waa garanaya. I think so dhagayaro waay. dhagayaro iyo hadda waxaan dabka mashiinta soo gelinayaa hayl si fiican isugu soo shiidayaa. waa kan hadda iyagu si fiican isku soo dhexgalayo. marka intaan isku soo shiido ay si fiican isku soo dhexgalaan maxaa meeshaas iigu haray. meeshaas hadda waxaa iigu haray qolfo iyo midkaas kala indhahay magaciisa ma garanayo bal ay waxaan u maleynaa inaa kaamirada ku qabte si ay ila aragtaan. hadda ereygii maalin hore markaan soo gelinayo videoga muhogo af Kiswahili waaye muxog waaye dhahdeen waan bayaa waxaan dhahay oo waaba isla ereygii ma fogee ka sheekee. marka hadda waa kana meeshaan qolfihii hadda soo jarjareynaa si ay mashiinta u diidin yaryariisan kasoo dhigayaa. kadib horta qolfaha keligoodan gooni usoo shiidaa maadaama qolfahan ay ku kan adag uu yaho midka yaryariiska ahayo qafiifka ama ahayn. waa kana asagana hadda wuu soo shiidmay inkastoo marka hore iga yara diiday. kadib waa kana midka kale idin sheegaya taloomaan ku qabtay kuma qabanin mar kale idin tusi doona bal magaciisa ay ugu sheegdaan. bariiskan waa lagu darsadaa maxaa la dhahayo waxaa kaloo lagu darsadaa shaaha caraf aad u macaan uu leeyahay bariiska markii lagu daraayo, laakiin asagoo sidiisa lagu daraa xidig camal waaye. magaciisa ma aqaan laakiin meesha markaa kasoo adeeganaya waa soo qaataa le. marka waa kana hadda sidaan quruxda badan uu noogu soo baxay. kadib weelkaan yaraan soo qaadanaya weelkaan hiilka ku shubto waaye. halkaanaan kusoo shubanaya bitartiib. intaana waxaan ku yidhi waxay ku heynaysaa bil iyo bar maadaama xaafadan shaah zaaid loogama cabo halka maroo la kariyo, laakiin waxaa waaye in loo xiiso waayo adduun oo dhan lagu daro somaha. ana horta reero shaah ma bihiiba waxaa laga yaabaa dhowrkii bilood inaan hal mar cabo laakiin dadka cabaya waxaa waaye in loo macaaneeyo bahalka. kadib waa kana meeshii aan iska soo tirtiraya hadda waan soo dhameeyey. shaqada waa la iska fududeeyaa meeshii aad shaqada kusii qabsato hadda iska sii nadiif shaqada way ku fududaaneen. kadib meeshaana waxaan rabaa inaan raashinka containeryo ama dhalooyinka aan ku shubto inaan idin la wadaago.
adigana howl fududeysay ku tahay maanta dhan hoos waxba kuma soo shubeysa bariiska. markii hadda waa kana bariiskan kusoo shubaa uu iga wada daate maadaama weelkan afkiisa wuu yaraa weelka isticmaalayna afkiisa wuu weynaa laakiin kama laaban waxaan iri kuwad marka laakiin next time waxaa soo qaatay weel xoogaha ka yar marka adigana waxay ku tahay saving ay ku tahay jikadina maamulkiina kaama halaabayo dhaqaale ahaana way ku fiican tahay oo maxaa la dhahayo waxaagu isugu ka aruursan yihiin maanta codkayga xataa xabeeb waaye hal igu qaato dhuunta ay kala go-an kadib haddana meeshaan waxaan kusoo shubanaynaa caleentii waxaan kaloo dhaladan kalena kusoo shubanayaa sonkorti markii hadda aad weelka jawaanka ama baaldig weyn uu kugu jira aad kasoo dayaysid waxaa laga yaabaa inay gaada daataan ani ma aqaan horta markay weelasha saan camal igu jiraan maxaa la dhahayo markii aan baaldig weyn oo igu jiro mid 10 kg igu jira 10 kiilo aan ku shubto sidaana ii dhaqaale badan ma garanayo sababta marka adinkan waxaa rajeynayaa inaad sidaas oo kale sameysaan meeshaan hadda waxaan kusoo shubanayaa baasta makaroni bilicda jikada xataa way u fiican tahay markaa geeska dhigdid qurux waay kaal iska arag markaa jikada soo gashid halkaas geeskaasna ubax uu ku yaalo ada xataa jikadaada waa jeclaanaysaa dhaladana iftiin iyo qurux ay ku siinaysaa marka maanta videogeena intaanu ahaa anigoo hadda baasta makaroni meeshaan kusoo shubto waa kana ida xataa way iga dadaate laakiin waa laga daba tegay lagama daba harin maadaama daboolka uu furka uu afkiisa yaryahay dhibka taas waaye waa kana marka maasha Allah sidaan quruxda badan ay noogu soo baxeen daboolihii aan afka uga wada xirxiri lahaayaan soo tirtirayaa maadaama weelashan aan soo dhaqay intaanan wax kusoo shubanin teeda kale weelashan mayonnaise ay igu jira saddexdaas waaweyn midkaan yarna waxaa igu jira Nutella chocolate-ka dhalooyin aan gooni usoo gada ma ahan marka waxaan dhahay ayaga ma isticmaashid maxaa u tuuree sidaanay u qurqurxan yihiin markii lagu shubano waaba kana sidaanay kusoo baxeen maasha Allah marka maanta videogan intaas ku ekaa waan isku soo nabad laaban doonaa maanta wixii ka bilowdana online ahaanaya waxa isku dayaa inaan maalin dhaaf video idinku soo geliyo biidnillah sidaas iyo nabadgelyo isku ognahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye